kusoo dhawaada daawadayaal wararka ugu waaweyn shir looga hadlayay ammaanka oo xalay maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil ciidan ay ku yeesheen Muqdisho booliiska Soomaaliya oo sheegay inay qabteen ruux la xiriirinaya dilka haweeney meedkeeda laga helay hotel ku yaala Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho kula kulmay wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Khayre oo beelo degan gobolka Galgaduud ay ku wareejiyeen Maleeshiya iyo gaadiid dagaal dadaalo nabadeed oo lagu xalinayo colaad beeleed ka taagan gobolka Hiiraan oo ka socda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal oo maanta go'aan ka gaartay dilkii iyo kufsigii loo geystay Caaisha Ilyas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahlu sunna oo la filayo inay heshiis ku kala saxiixdaan dhul Samareeb iyo dagaal laga cabsi qabo inuu ka dhac dalka Suudaan markana daawadayaal u diyaar garoobo warkii oo aynu ku bilawnay shir looga hadlayay ammaanka ayaa xalay maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil ciidan waxa ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho Cabduqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya warkaas iyo war kale oo la xiriira booliiska Soomaaliya oo sheegay inay qabteen ruux la xiriirinaya dilka haweeney meedkeeda laga helay hotel ku yaala magaalada Muqdisho shirkan oo laga hadlayay amniga caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxa shir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa oo qayb galay taliyaasha ciidamada sida taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Americo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Sareyagaas inda qarsho iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir afayeenka maamulka gobolka Saarax Dheer iyo mas'uuliyiin kale waxaana inta badan looga hadlayay dardargelinta howlaha kormeerka iyo howlgallada isla xisaabtanka ee hay'adaha amniga Soomaaliya ee ka wadaan magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale kulanka looga hadlayay amniga inta uu socday waxaa la isla soo hadal qaaday howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ay ka fuliyeen degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir kaas oo lagu soo qabtay nin lagu magacaabo Bishaar Cabdirasaaq Maxamed kaas oo hay'adaha amniga Soomaaliya ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay dilkii loo geystay haweeney kamid ah kuwa ku noolaa magaalada caasimadda Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Suleeqa taas oo meedkeeda laga helay hotel ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana kulanka looga hadlayay amniga caasimadda ee ka socday ama ka dhacay xalay magaalada Muqdisho ahaa mid todobaadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka dhacay isla markaana looga hadlayay amniga caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay sheegeen in shirarka looga hadlayo amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay noqon doonaan kuwa markaasi joogtaha si loo dardargeliyo sugidda amniga caasimadda isla markaana sidoo kale loola xisaabtamo hay'adaha amniga iyo saraakiisha ciidamada ee howlgallada inta badan ka wada degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in shakhsi markaasi loo xiray haweeney meedkeeda laga helay hotel ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in ciidamada hay'adda dambaarista ee CID-da ay kiiskaas u hayaan shakhsi lagu magacaabo Bishaar Cabdirasaaq Maxamed kaas oo baaritaano ay ku socdaan ciidanka booliiska gaar ahaan hoggaanka dambaarista CID ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan eedeysane Bishaar Cabdirasaaq Maxamed kaas oo ku eedeysan dilka marxuumad Suleeqa Yuusuf Axmed falkaas oo dhowr cisho ka hor ka dhacay hotel Caamir oo ku yaala degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir booliisku ma shaacin qaabka dilkaas oo u dhacay hayeeshee waxaa taliye ku-xigeenka sheegtay in baaritaano lagu hayo shakhsigaas ku eedeysan dilka Suleeqa oo lagu magacaabo Bishaar Cabdirasaaq Maxamed inta badan magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka ayaa waxaa ka dhaca dilal kala duwan oo loo geysto haween kuwaas oo qaarkood dad loo xiro qaarna weli aan loo hayn waxaana kiiskii ugu weynaa ee sanadka 2019 dhacay uu ahaa kufsi iyo dil magaalada Gaalkacyo loogu geystay gabar 12 jir ahayd oo loo magacaabi jiray Caaisha Ilyas Aadan walow dad lagu eedanayo dilkaas loo xukumay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa beelo degan
gobolada galgaduud waa gobolka galgaduud waxa ay ku wareejiyeen maleeshiya iyo gaadiid dagaal. dhinaca kalena ra-iisul wasaare kheyre iyo ahlu sunna ayaa la filayaa inay heshiis ku kala seexdaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug. maxamed cabdi ayaa faahfaahinaya. qaar ka mid ah beelaha 11 ah ee dega gobolka galgaduud ayaa ku wareejiyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaadiid dagaal iyo maleeshiya beeleed kadib markii uu booqday ra-iisul wasaaraha degmooyin deegaano ka tirsan gobolka galgaduud. mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaanka Xiraale ee gobolka galgaduud ayaa shalay galab ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxay ku wareejiyeen gaadiid dagaal oo gaaraya 11 iyo maleeshiya hubeysan oo aan tiradooda la xaqiijin. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii uu la wareegay maleeshiyada iyo hubka deegaanka Xiraale waxa uu sheegay in uu maleeshiyada dhaqan celin u sameyn doono isla markaana gaadiidka dagaal ay ka mid noqon doonaan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in beelaha deegaanka Xiraale ee gobolka galgaduud ay heshiis toos ah la galaan beelaha dhowr jeer oo hore ay ku wada dagaalameen deegaano ku dhow deegaanka Xiraale ee gobolka galgaduud isagoo ugu baaqay in wada hadal loo bedelo ficilada nabadeed ee hadda u muuqanaya. sidoo kale waxa uu sheegay in dhinaca kale uu la kulmay loona baahan yahay dhankooda in ay fuliyaan. waxaa kaloo rabaa inaan halkan ka hadlo oon sheego inaan soo marnay intaanan halkan imaan huurshe halkaasoon kula soo hadalnay shacabka Soomaaliyeed oo halkaas degan. waxaan ognahay in huurshe iyo Xiraale khilaaf uu ka jiray. waxaan ognahay in odayaal Soomaaliyeed ay waqtigooda geliyeen inay xalliyaan khilaafkaas. waxaan u soo sheegay iyagana in la xallin doono. idinkana waxaan rabaa inaan idiin sheego inaanan halkan ka tegi doonin ilaa caawa aad ii sheegtaan in khilaafkaas la dhameeyey. sababtu waxay tahay waa la soo dhaafay waqtigii dagaalka iyo colaadda. dadka wareejinaya hubka oo reer Xiraale waxba kuma aha walaalahoodna inay la heshiiyaan. tusaalahaas awgeed ayaan hubaa in inta dhimanaan dhammaystiri doonna intaan galabta idinla joogno aniga iyo wafdigeyga. intaas ka sokow aniga iyo wafdigay la socday waxaan maalmahan ku dhex soconnay dowlad goboleedka galmudug halkaasoo aan aaminsannahay inay caqabada soo food saareen laakiin aan ugu nimid shacab weynaha reer galmudug inaan dib ula dhisno dowlad goboleed xor ah mid ah toosan tayaysan oo loo wada dhan yahay oo himiladeedu ay tahay inay siiso adeeg ufan shacabka reer galmudug. wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay ku haray deegaanka Xiraale iyaga oo kormeero ku sameeyay goobaha ay bulshada isugu tagaan xarumaha ganacsi iyo sidoo kale xarun booliis oo ku taala deegaankaasi. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe isaga tagay deegaanka Xiraale isagoo aaday dhanka degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee uu hogaaminayo qayb la socotay isaga ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb xalay waqti dhexe iyadoo ay halkaasi ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta ururka ahlu sunna. ra-iisul wasaaraha oo ku safraya dhinaca dhulka ayaa degmada Dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxa uu kulan kula qaatay mas'uuliyiinta ahlu sunna waxaana la filayaa in maanta halkaasi ay ku kala saxiixdaan heshiis ka hadlaya waxyaabaha ay ku heshiiyeen ahlu sunna iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. heshiiska oo la filayay in dhawaan uu dhaco ayaa hakad u galay kadib markii ra-iisul wasaaraha uu soo galay safar ah inuu tago magaalada Cadaad oo halkaas uu kula kulmay madaxweynaha maamulka galmudug iyo waxgaradka degan magaalada Cadaad. xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xoogga saaraysa in maamulka galmudug bisha soo socota ee July uu ka dhaco doorasho lagu dooranayo hoggaanka maamulkaas oo waqtiga uu ka dhamaaday iyadoo dowladda Soomaaliya ay doonayso in waxgaradka iyo sidoo kale beelaha deegaanada galmudug in ay ku midoobaan maamulkaas oo aan mar dambe soo laaban khilaaf salka ku haya sadbursi. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk Itoobiya mudane Axmed Shide. wasiirka maaliyadda dowladda federaalk Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay dhambaal hambalyo
iyo salaan ah oo uga siday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Madaxweyne Farmaajo ayaa u xaqiijiyay wasiirka maaliyadda Itoobiya sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay nabadgelyada, xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee guud ahaan gobolka Geeska Afrika. markalna dadaalo lagu joojinayo colaad beeleed ka taagan gobolka Hiiraan ayaa ka socda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Axmed Tifo Xasan ayaa dhameystiraya. odayaasha dhaqanka ee gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa kulamo loo kala kicin waxa ay saacadihii la soo dhaafay ku yeesheen magaalooyinka Guraceel iyo Beledweyne oo ka kala tirsan Galgaduud iyo Hiiraan bartamaha Soomaaliya. waxaana ujeedka kulamadaasi uu ahaa xalinta colaad beeleedyada kusoo laalaabatay duleedka gobolkaasi Hiiraan. waxaana la soo warinayaa in odayaashu ay si weyn u falanqeeyeen sida xal looga gaari karo colaad beeleedyadan joogtada ku noqotay galaaftana nolosha dad badan oo u badnaa dad reer miyi ah. odayaasha ka soo jeeda gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in labada dhinacba looga baahan yahay tanaasul badan in ay muujiyaan iyagoo cashir ka qaadanaya wixii dhacay maalmihii la soo dhaafay. waxaana ay sheegeen in aan loo baahnayn markan wixii ka dambeeya in dagaal dad badan galaafta noloshooda uu sii socdo, iyagoona uga digay dadka dagaalamaya in qoryaha ay dhigaan wixii tabashooyin ay qabaanna lagu xalin doono miiska wadahadalada. qaar ka mid a odayaasha ayaa waxa ay xusid mudan tahay in aydan ay usoo jeediyeen gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Hiiraan ee xilka laga qaaday ha yeeshee diiday xilka qaadisiisa Yuusuf Dabageed in isaga uu gadaal ka riixayo dagaal beeleedyada ka soconaya duleedka magaalooyinka Matabaan iyo duleedka magaalada Matabaan ee gobolkaasi Hiiraan. waxaana ay sheegeen in ay tahay Yuusuf Dabageed in uu ka waantoobo gadaalka riixa ama gadaalka istaaga dagaalkaasi. Yuusuf Dabageed oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in waxba aysan ka jirin aydeenta ay usoo jeediyeen odayaasha ka soo jeeda gobolka Galgaduud. waxaana uu sheegay in uusan wax lug ah ku lahayn dagaalkaasi. Yuusuf Dabageed ayaa odayaasha dhaqanka ee labada gobol ugu baaqay in dagaalka la joojiyo wax walbaana lagu xaliyo miiska wadahadalada ha yeeshee isaga aan loo tiirin dagaal beeleedyada ka soconaya duleedka gobolka Hiiraan. waxaana si cad u ogahay inaan dhimana adduunka waxaan ku sameeyana ilaahay agtiisa aan ugu tagaa si cad aan u oga. qof walbow waxaad sheegi sidaas adoo u og sidaas adoo u og ilaahayna uu kula og yahay sheeg adiga. haddaan laftigeeda kii meesha laga sheegayo oo shalay iyo dor hadhacay dadaa miidiyaha ka lahaa Yuusuf Dabageeda lagu soo duulay oo la dilaa. laakiin hadda uu dagaalkaas ka shaqay ma oo ilaahay ugu raalina kama ihi oo ilaahay ay ugu sharafkaygana maahan in kuwana aan la tago kuwana aan ku duulo ilaahay ugu kulligood madaxaano sida aniga aaminsanahay adiga saad rabtiin aaminsanaada. laakiin aniga waxaan aaminsanahay labadaas qolo diriraysa inay isku kaymid yihiin mid walbana xaqiisa leeyahay. anuguna aan madax wadaho dadka u madaxa oo ka soo jeeda labadaas qoys ina ka mid ahayaan aniga aaminsanahay inaan qolo aan la safnayn oo qolo aanan abaabulayn. tobanaan qof ayaa ku geeriyooday dagaalka ka soo cusboonaaday magaalooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan. waxaana jirta in ilaa ay hadda ay socdaan waan lagu qaboojinayo dagaal beeleedyadaasi mar kale dib uga qarxay gobolka Hiiraan duleedkiisa.